ku dhawaad 400 oo qof oo ka qayb galay barnaamijka shaqo qaran oo saameeyay gobolka Sanaag uu helay 330 qof ayaa u fariistay imtixaanka ay ku kala hadhi lahaayeen isla markaasna ay ku soo bixi lahaayeen 330 qof oo ka qayb noqonaya barnaamijka shaqo qaran waxaana imtixaankaasi lagu qaaday jaamacadda Sanaag University iyo iskuulka Xaaji Aadan halkaas ay goob joogayaal ka ahaayeen barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo mas'uuliyiin ka socday barnaamijka shaqo qaran waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka socotay barnaamijka shaqo qaran iyo sidoo kale macallimiinta iyagu imtixaankaasi siday waxaan u nimid imtixaanka maanta ka bilaabmay 8 subaxnimo caasimadda gobolka Sanaag magaalada Ceergaabo oo ay fadhiisanayaan tiro ku dhow 400 oo arday oo u tartamaya barnaamijka shaqo qaran waxa la qaadan doonaa haddii aan la yiraahdo marka imtixaanka la saxo si cadaalad ah 330 oo boqolkiiba 30 ka mid ay yihiin gabdho boqolkiiba 65 ay yihiin wiilal boqolkiiba 5 ay tahay naafo haddii la yiraahdo waa wax soo biiray gobolka Sanaag waxay noqon doonaan shaqaale madax mas'uuliin saraakiil haddii la yiraahdo inta soo baxdaa waa arrin soo kordhay horena waa tii dhawaan loo tartamay 50 kaalmood oo gobolka Sanaag lahaa marka waxaan rajaynayaa dhalinyarada tartamaysana in insha Allah intii Ilaahay u calfay ay soo baxdo saaka si fiican ayuu nooga bilaabmay dugsiga Xaaji Aadan iyo jaamacadda oo isku dhow imtixaankii shaqada qaranka ardaydeena imika imtixaankii way ku jirtaa waana u fadhiisteen si fiicanna waa loo wadaa nabadgelyo wax dhibaatooyin ma jiraan oo nala kulmay hawshuna aad bay noogu fududahay qolada gobolkuna aad bay noola shaqeeyeen jaamacadda iyo maamulihii dugsiga iyo waxbarashada labaduba agaasimaha shaqo qaran oo si fiican buu noogu yimid intii naga hadhay isaga naga daba keenay markii hore naga hadhay waxa iyaguna halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta shaqo qaran ee gobolka Sanaag iyo barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan waxa maanta aynu ognahay in gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan ay ka jirto imtixaankii shaqo qaran annaguna haddii aanu nahay gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceergaabo waxa weeye maanta si fiican ayay noogu socotaa oo habsami ah waxaanuna uga mahad celinaynaa madaxda nooga timi caasimadda oo ah agaasimaha shaqo qaran iyo agaasimaha waaxda kormeerka aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa shaqaduna si wanaagsan bay u socotaa tobnaad waxaan noo geliyay 376 arday oo gobolka Sanaag aanu ka diiwaan gelinay waxaan ugu mahad celinaynaa Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaalilandba qaybta fiican ee 330 ka ee gobolka loo tixgeliyay maadaama uu gobolku yahay gobol ballaaran ardaydiina waa u fadhidaa si wanaagsan baa hawshuna u socotaa siday noola shaqeynayaan xafiiska guud ee imtixaamaadka iyo mas'uuliyiinta barnaamijka shaqo qaranba aad baan uga hambalyeynaa sida wanaagsan noola shaqeynayaan gabagabadii bulsha TV magaalada Ceergaabo.